ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta maareeyaha telefishinka qaranka agaasimayaal iyo sidoo kale xogayaha gaarka ee madaxweynaha iyo la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa kale oo madashaasi goobjoog ka ah xubno ka socda ururada bulshada ee iyagu madashaasi soo qabanqaabiyay ugu horreyn wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Cabdilaahi Maxamed Daahir Cakushi oo madashaasi ka hadlay ayaa si faahfaahsan uga warramay shakhsiyadda agaasimaha cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda oo ku tilmaamay in uu yahay shakhsiyad dhalinyaro isla markaasina aqoon karti hufnaan dhaqan iyo hawlkarnimo isku darsaday ka tari doona wax fara badan buu ka tari doona waa dadka maskaxdoodu ay xurinta leedahay creativity-ga leh waa dadka aan daalinay habeenka iyo maalintu isugu mid tahay waa dadka dhaqanka iyo shoodka badan leh waa dadka aynu muslim iyo gaalaba ajnabiga hor qaban karayno ayuu ka mid yahay aad baa mahadsantahay isla markaana wasiirku waxa uu xusay in uu ku kalsoon yahay gudashada hawsha ballaaran ee qaranku u igmaday maareeyaha telefishinka qaranka Soomaaliland Khadar Xasan Cali Gaas oo isna madashaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in agaasimaha cusub uu ka mid yahay hadalka dhalinyarta reer Soomaaliland isla markaasina kalsooni buuxda ka qabo in uu gudan doono mas'uuliyadda ballaaran ee la saaray isagoo maareeyo tusaale u soo qaatay sidii uu waxqabadka muuqda agaasimuhu hore uga soo sameeyay xilalkii hore uu ka soo qabtay dawladda wax badan looga fadhiyo inuu ka qabto ilaahay waxaan uga baryayaa inuu xilka u fududeeyo walaalkii maxamed xasan waa mas'uuliyad weyn oo u baahan in la yimaado dadaalkeeda waan hubaa inuu ka soo bixi doono haddii alla yidhaah ilaahayna waxaan uga baryayaa inuu fududeeyo haddii alla yidhaah agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badaha Maxamed Ilkaasi oo isna madashaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in maanta ay dhalinyarta reer Soomaaliland mideeyaan fikradooda isla markaasina ay ku taageeraan xubnaha dhalinyarta ah ee xilalka loo igmaday gudoomiyaha dalladda ururada aan dawliga ahayn ee Sonsaf Mr Mustafa Saad iyo sidoo kale Cabdirasaaq oo ku hadlayay afka hay'adaha wadaniga ee hay'adda iyo TRG ayaa hambalyo u diray agaasimaha cusub iyagoo mahadnaq ballaaran oo u diray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo iyo xukuumaddiisa oo ay ku tilmaameen in ay tahay xukuumaddii ugu horeysay ee siisa dhalinyarta xilal muhiim ah isla markaasina ay ka rajeynayaan xilal kale oo intaasi ka sii badan waxaana ay tilmaameen intaasi ay dhiirigelinayso guud ahaanba dhalinyarta reer Soomaaliland meel kastoo ay joogaan agaasimaha cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Maxamed Xasan Siciid